Bismillahir Rahmanir Rahiim. Magacaygu waa Kiise Xuseen Colaad. Waxaan ka mid ahay ardayda senior-ka ah ee ka qalin jebinaysa sanadka jaamacadda Togdheer 2020. Waxaan ka mid ahay faculty-ga caafimaadka, waaxda shaybaadhka. Waxaan halkan aad iyo aad uga mahadcelinayaa Horyaal TV oo ila qaybsaday dareenkayga farxadeed ee qalin jebinta. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa maamulkii iyo macallimiintii iyo waalidkii ka soo qayb qaatay hayaankii dheeraa waxbarasho iyo jaamacadda Togdheer oo noo diyaarisay laabab waxbarasho, kuwa akhris, kuwa shaybaadh iyo kuwa caafimaadba. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa u hambalyeynaya guud ahaan ardayda ka baxaysa jaamacadaha dalka gaar ahaan gobolka Togdheer. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Magacaygu waa Raxmaan Maxamed Jaamac. Waxaan ka mid ahay ardayda graduate garanaysa sanadkan senior-ka jaamacadda Togdheer University. fakalkaygu waa health science gaar ahaan kalkaalisada caafimaadka. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala igu soo gaarsiiyay marxaladeedii inaan soo dhameysto digriigii koowaad waxbarasho. Sidoo kale waxaan ugu mahadcelinayaa waalidkayga sida qiimaha badan soo garab taagnaa, macallimiintaydii, maamulkayga jaamacadda ii diyaariyay library jaamacadeed. Sidoo kale iga dhisay xagga practical xaq aqoon ahaaneedba. Waxaan u mahadcelinayaa Horyaal TV oo igala qayb qaatay dareenkayga farxadeed ee graduate garan. Bismillah. magacaygu waa Hooda Cali Muuse kamid ah ardayda ka qalin jebinaysa jaamacadda Togdheer University magaalada Burco. waxaan ahay ardayda dhigata informatics-ka gaar ahaan IT-ga. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan macallimiintii iyo maamulkii jaamacadda. waxaan u mahadcelinayaa kala waalidkay oo intaas oo dhan igu soo tabcayay. waxaan u hambalyeynayaa ardayda ka qalin jebinaysa sanadka Soomaaliland oo dhan gaar ahaan gobolka Togdheer. waxaan u mahadcelinayaa Allah weyne si suura galiyay maanta digriigayga koowaad ka qalin jebiyo. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Magacaygu waa Saciid Kiise Xasan. waxaan ahay arday ka qalin jebinaya jaamacadda Togdheer University sanadkan 2020. waxaan ahay arday dhigta accounting and finance. ugu horreyn waxaan u mahadnaqayaa Allah subxaanahu wa tacaala Ilaahay oo suurto geliyay inaan maanta soo afmeero hayaan waxbarasho oo soo socday muddo aad u dheer. sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa waalidiintay oo iyagu ila garab taagnaa kaalmo hiil iyo hooya. sidoo kale halkan waxaan uga mahadcelinayaa walaashay iga weyn Rooda Kiise Xasan. waxaan u mahadnaqayaa macallimiinta Togdheer University, maamulkeeda iyo shaqaalaheeda. sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa TV-ga Horyaal TV oo ii suura geliyay maanta inaan muujiyo dareenkayga farxadeed. alxamdulillah. ugu dambeyn waxaan khayr u rajaynayaa dhammaan ardayda ka qalin jebinaysa jaamacadaha dalka gaar ahaan jaamacadda Togdheer. marka hore Ilaahay waa mahad leh. marka labaadna waxaan mahadnaqayaa runtii bahda TV-ga Horyaal qaybta Burco oo runtii ah niman dhalinyaro ah runtii aad iyo aad u firfircoon. marka labaad waxaan jeclahay inaan halkan kelmad hambaliyo bogaadin iyo ducaba ah aan hawada u mariyo ardayda sanadkan ka qalin jebinaysa jaamacadda Togdheer oo ka kooban kulliyadaha caafimaadka, social science-ka iyo informatics-ka. waxaan leeyahay marka hore hambaliyo. Ilaahay cilmiga aad barateen ha ka dhigo kii dadkiina, dalkiina, diintiina iyo dantiina baad ku anfacdaan. marka labaad runtii waxaan iyagana u hambaliyeynayaa oo aan hawada u hambaliyo iyo runtii ducaba u marinayaa intaa la mid ah ardayda kale ee sanadkan iyaguna ka qalin jebinaya jaamacadaha kala duwan ee dalka gaar ahaan gobolka Togdheer iyo guud ahaan Soomaaliland. inay ardayda dugsiyada sare ka soo baxday ee Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaanba ay runtii ka soo qayb galaan fursaddan waxbarasho ee dahabiga ah ee jaamacadda Togdheer hayso. sida la wada ogyahay jaamacadda Togdheer waxay ka mid tahay jaamacadaha ku yaala gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco ee xagga tayada iyo xagga tacliintaba runtii meel sare ka jirta waxa weeyaan Soomaaliland tacliinteeda sare. waxaan runtii ugu bishaareynaa ardayda dhiganaya soo gelisay jaamacadda inay ku soo biiraan bah iyo qoys runtii qurux badan oo loo diyaariyay agab iyo qalab iyo waxa weeyaan deegaan ku habboon oo ku hagaagsan waxbarashada inay ku soo biiraan fursado runtii aanay jirin ama ay yar tahay meel kale oo lagu hayo Soomaaliland. jaamacaddu waxay soo gashay heshiisyo caalami ah oo haddii Ilaahay ka dhigo maalmaha inagu soo foorka leh haddii Ilaahay ka dhigo barnaamijyadii ugu horreeyay la daahfuri doono oo luqadda Ingiriisiga oo heer caalami ay ka tahay.
jaamacadda sidoo kale waxa ay fursado u raadinaysaa dibadeed oo waxbarasho ardayda runtii ka qalin jabisa jaamacadda ee doonayaan waxbarashadooda sii wataan.